السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا قالي يعملوا باجوكتي وين سلامي وأولاشي جميل أحمد. ما أنت محايدين وضع بورصة يروح حركة وحيركو قاديسو aan sameeyay sida u jeedaan boorsa jeera leedahay mobilkaaga baa uraacaga yarka ah waxyaabo kale oo yar oo sas oo weynina ku qaadaysaa marka qaabkii aan u sameeyay boorsadana rabaa maanta inaan idin la wadaago hadii Allah awoodo la ii qadaro saasa uga xarakoonaysa gacanta inta gashato marka boorsadan aa u jeedaan insha Allah waxaan rabaa sidaan u sameeyay inaan idin la wadaago insha Allah laakiin waxa sugaysiinay intaanan galin shaqada hadii aan ugu cusub tahay subscribe hadii aad hore noo joog jirtani like wixii ra'yiina commentiga ugu dhaaf insha Allah waa kana boorsada waxaan ka sameeyay duntaan sida arkaysaan iyo cirbada lambarkeeda waa 3 number 3 maxaa yira cirbada farshaxanka ani wax kale uma aqaano iyo duntan waa tii caadigeed oo normalka ahayd mid waxa jirta ka waaweyn oo markii aan baranayay aan ku bartay qofka bilowgaana duntaas oo fiican waan idin tusi doonaa insha Allah duntaas waaweyn hadda tanaan ku sameeynaa insha Allah saa u jeedaa marka sida loo xiraa idin baraa aniga fartaas ugu xirtaa dunta ma fahamteen qofba soo wuxuu u xirtaa aan laakiin fartaas ugu xirtaa meesha dhaxan ka soo dhex bixiya kadib saasa la isku sirqina marka kala jiida kala furtane inay sidoo ku soo noqotaa la rabaa ma fahamtay marka waa isku xireynaa kadibna fariiridaas aan gelinaa hadda korona aan ku sheeg fartaas kala ku qabana fariirid marka ku laabo farta kala suul ku xigtana aan ku soo laabo suulka iyo farta dhexdan dunta ku qabana cirbada kalena gacanta kala ku qabsana cirbadana qof walba si uu qabsadaa qof uu kadiyaa qof qalinka camal uu qabsadaa qof walba uu soo rabo qabsadaa aan laakiin sidaas aan qabsadaa ma fahamteen markii sidaas aan ku wadaa silsiladaha intii aad rabto aad sameeysanay oo qiyaastaada yani wixii aad u baahan tahay qiyaasteeda silsiladana marka aad sameyso waxay noqonaysaa sida tin la daba camal waa u jeedaan hadirtaan sida tinta la daba camal ay noqonay maxaa la dhahaye hadda waan macnaha saddex qayb camal aan soo sameeyay 3 sadar laakiin insha Allah sadarka markaan dhameeyay sadarka kale aan bilaabay qaabka aan bilaabay waa idin tusina xogaa yar mashquul ah intaan gala iska hilmaamay kaamirada muduubin sorry marka waa idin tusina insha Allah hadda meeshaan sadar cusub aan bilaabaya marka 3 silsilad aan geliyo meesha waxaan ka bilaabayaa oo geeska xigto laba dhinac waaye labada dhinac midna way sukaysaa midna geeska xigta gelinaya dunta ka dhex bixine kadibna ayara sidaas ugu wadaysaa saddex ka bixine sida u jeedaanbo marka xogaa yarna boobsiisna uu ku furan yahay waxaan diidayaa inuu videoga dheeraado laakiin waxa waaye hal maalin waxa lagu baran karo waxay u baahan tahay inaan si tartiib ma aragtid idinku soo kala dhigdhigo sadarka sida loo bilaabo iyo markii uu sadarka dhamaado sida loogu soo celinaayo waxa waa step insha Allah soo gelin doonaa in 10 soo gelinaa hadda saasa ku wada soo dhameeyna wax badan insha Allah soo fiiriya hadda waa kana maradii aada u dheereeyay markaan dheereeyay kadib oo badiyay qiyaastii aan u baahnay aan gaarsiiyay waxaan sameeyay mara madow oo soo qaatay maradii madoobeedan dhexda ka soo galiyay waxaan rabaa inaan isku laabo marka jeerkaasna aan galiyo oo maxaa yiraahdaa boorsada ku tolo cirbadaas caadiga u jeedin waan ku soo tala sida arkoosiin hadeertaan hal gees bis ay dhiman marka insha Allah horta videogan waxa way boosiisno ahay waxyaabaha qaar maana duubin laakiin waxay kamid ahayd waxyaabihii aan sameeyay insha Allah ana 10 bilaaw ah idin soo gelin doona dunta oo maxaa dhahay 10 aan ugu sameyn doono hadii Ilaahay yiraahdo oo qaybta koowaad silsilada sida oo sameysan lahayd maxaa ku dhahay kadib silsilada markay dhamaato saa ugu soo celin lahayd iyo silsiladaha la sameeyay intay u kala baxaan marka insha Allah waxyaabahaas oo dhan ay idin soo gelinaa wareega oo laakiin waa inaan kala dhigdhigaa hadii sidaan oo kale waxaan ku fahmi kartiin 10 aan ku kala dhigaa insha Allah hadda boorsadii waa soo dhameeyay u jeedaanbo marka soo gadinaa markaan soo gadiyo kadib sida ku soo baxay marka meelaha yaryar dunta ka soo taagan macnaha waxa waaye waa la jarjaraa hadii la jiido wax badan furfurmaayo fahmtay
marka wixii dun soo taagan dhan maqastaas waa ku jarjaree. marka hadda waa u jeedin boorsadii saanay ku soo baxday. marka maxaa u dhiman marka hadda waxaa u dhiman inaan u sameeyo geedka yaro oo sidada oo lagu qabsan lahay dhexdeeda waa socota. waa u jeedaa ma sha Allah ku soo baxday qurux ma sha Allah kala fiican waa ka sameeyay qurux badan. marka waxaan u sameynaynaa hadda marka sidadii ama galkii laga qabsan lahay birtaas yarta u jeedid waxaa waaye birtaas aan gelinayna waa ku sameynana kadib birtaas aan ka sameynaa macnaha galkii gal si gelina ama sidadii saa u taqaanabo. marka birtaana hadda ku tolaa birta dunta cirbadii maxaan geliyay boorsada kadibna waxaan ku tolaaya sidii caadiga oo dunta loo sameeyay camal ugu tolaa. cirbada oo caadiga ma aha waxaan ku tolaaya waxa waaye cirbadii farshaxanka. marka inaa fahamteen rajayna kaas markaan ku soo tolo marka oo ku soo dhameystiro kadib waxaan gelinayaa xarig yarka ayaan u sameeyay. xarig yar asagana si gooni ah u soo sameeyay kadib xariga waxaan ku dhijiyay geed yar oo la yiraahdo bambam la dhaho. bambamkaasna sidii loo sameeyay asagana waa idin tusin doonaa insha Allah. geedkaas ku soo dhijiyay hadda sida arkaysabo waa u jeedaan hadda waa ku tolay duntii halkii waxa dhilay birtii yareed oo ku tolay ma sha Allah waa ku soo tolo ku soo dhameeyay. kadib duntaas maxaan sameynayaa waa ka jarjaraa kadibna geedka yarka xarigii aan u sameeyo sidada ahaayaan ku soo dhijinaa idin tusina insha Allah. marka saanay ku soo baxday waa u jeedin labada dhinac baa uga tolan yahay waa kana xariga yarka. marka xariga gooniya u soo sameystay ma fahamtay xariga gooniya u tolay dunta leena ka tolay xarigana marka waxa ku sameynaa geedaha yararka soo sameeyay bambamka ku soo dhijinaa kadib waa isku xiraa. waa aragtiin geedahaas yarka sharaxaada uga dhigay marka sidana uga dhigay kii hore sidada jeera oo jeerka macnaha ku sameeyay boorsadan laakiin sidada jeerka kumaana dhijin bir yaraan ku dhijiyay birta kadib aan sidada u sameeyay. waa u jeedaan hadartaanba sidana boorsadan noogu soo baxday oo qurux badnaata ma sha Allah tabarakallah. boorso yar oo iska fudud oo waxyaabaha yararka ku qaadan kartid waa hadii aad boorsada weyn u baahneen ma sha Allah. asxaabta qaaliga waxaa idin wadaagay sidaan boorsadan u sameeyay laakiin cashir ahaan sida dunta qaabka loo bilaabay iyo qaabka loo sameeyay insha Allah waa idin soo gelin doonaa hadii Ilaahay yiraahdo asagoo bilaaw ah la socod wanaagsan. wixii raayina comment ugu dhaaf insha Allah. subscribe to like tana hayloon. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.